كل نفس ذائقة. naxariistee waxaa magaalada Hargeysa si argagax leh loogu dilay taliyaha booliska gaar ahaan saldhigga Maxamed Mooge. waxaan rabaa inaan kula wadaago xogta qaarajinta sarkaalkaasi oo lagu magacaabo Korneyl Cabdi Cali Nuur oo markaasi uu dilay mid ka tirsan askarta ciidanka. haddaba sidoo ayuu u dhacay qaarajintaasi iyo sidoo kale ciidanka booliska Somaliland oo ku dhawaaqay war farxad loo ah in gacanta lagu dhigay gacan ku dhiiglihii geystay falka qaarajinta ah ee taliyihiisa. haddaba macluumaadkan ayaan rabaa inaan kula wadaago iyo sidoo kale geerida argagaxa leh ee ka dhacday saldhigga, sida ay wax u dhaceen, waxa loo adeegsaday korneylka qaarajintiisa, sababta keentay iyo sidoo kale reer ahaan halka sarkaalka iyo ay ka soo jeedaan iyo gacan ku dhiglaha. inta aanan xogtan iyo macluumaadkan kula wadaagin kuna soo bandhigin daawade, waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo xogta social media taale ah in falkaasi uu ahaa mid ay geysatay kooxaha khawaarijta ah. waa been abuur. dhulkaasina waa dhul nabad ah Somaliland kana duwan dhulka kale ee geeyiga Soomaalida. waxaana geystay sarkaal ka tirsan ciidanka Somaliland, askari aan iraahday gacanta ayaan lagu hayaa. fadlan haddii aan nagu cusub tahay nagu soo biir. sidoo kale waxaan kaa codsanayaa inaad u duceysid sarkaalkan oo ahaa nin howlkar ah, degan, akhyaar ah, dadkuna ay jecel yihiin. haddaba sidee ayuu u dhacay falka argagaxa leh ee lagu dilay sarkaalka? yuu yahay qofka dilay? sababta dilka keentana maxay tahay? waxaan rabaa in arrinkaasi xogtii ugu dambeysay aan ka helnay inaan ku bidhaamiyo. 2 saac ka hor qaar ka tirsan suxufiyiinta Somaliland ayaa baahiyey xog sheegaysa in Toorey nafta lagu dhaafiyey taliyihii saldhigga Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa oo la yiraahdo Korneyl Cabdi Cali Nuur, kaas oo ahaa ninkii saldhigga haystay. waxayna sheegeen nin ka tirsan kooxaha khawaarijta ah in markaasi uu falka geystay. laakiin 2 saac kadib ciidanka Somaliland ayaa ka hadlay in Korneyl Cabdi Cali Nuur uu u geeriyooday Toorey uu la dhacay nin ka tirsan askartiisa oo wax saldhigga banaanka ka ah aysan falkan ku lug lahayn. sidoo kale boolisku waxay tacsi u direen ehelada, waxa ayna ugu laabqaboojiyeen inay haayaan eedeysanaha ama gacan ku dhiglaha sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamad la geyn doono, sidoo kalena laga waraabin doono waxa uu mutaystay ama mudan yahay lagu xukumi doono oo u dhiganta qofkii qof dila in isna tiirka la geey doono. dabcan war farxad la ayuu ahaa. haddaba sidee ayuu u dhacay falku? yuuse yahay ninka la dilay? sidoo kale hayb ahaan yay kasoo jeedaan eedeysanaha iyo dhibanaha. korneylka waxaa la sheegay isagoo jiifa oo jawigiisu degan yahay oo aan wax dhiba qabin in inta ninkan Toorey la soo kor istaagay dhowr meel oo halis ah uu Tooreyda kala dhacay, isaguna uusan nafba la soo istaagin. Tooreyda kuwaad kadibba bartii oo ku ruux baxay loola cararay mid ka mid ah isbitaalada magaalada kuwooda ugu waaweyn, laakiin laga war helay ninkaasi inuu ruux baxay. sidaana ula wareegtay kooxda dambi baarista. baaris dheer kadibna lagu celiyey talaajada ama fridge-ka lagu ilaaliyo meydadka. haatan halkaas ayuu ku jiraa, baaristuna waa socotaa. sababaha dilka marka keenay in sarkaalkan la qaarajiyo dhowr nuuc ayaa loo kala wadaa. inta aanan sababta kula wadaagin, sida aan xogta ku helnay, ninka falka geystay waxa uu ahaa askari ka tirsanaa saldhigga oo markaasi taliyuhu oo ka talinayay. waxa uuna ka soo jeedaa beesha Garxajis Habar Yoonis, kaas oo si bareer ah oo la kaca Toorey ugu dilay taliyihiisii. sidoo kale sarkaalka la dilay Cabdi Cali Nuur waxa ka soo jeedaa beesha Habar Awal Sacad Muuse Jibriil Abubakar Reexareed. taliyaha la dilay waxa uu soo noqday madaxa baarista qaybta booliska Hargeysa, madaxa baarista hoggaanka baarista dambiyada Somaliland, taliyaha 4 saldhig oo Hargeysa ku yaala. marxuumku wuxuu ahaa aqoon-yahan sharci yaqaan ah oo xilal kala duwan ka soo qabtay ciidanka booliska Somaliland qaybahooda kala duwan. wuxuuna ahaa sargaal lagu xasuusto karti, deganaan, akhyaarnimo iyo sidoo kale u dhimrin iyo nin aan ku tacadin xabsiyada xilliga markaasi dadka isaga ay u xiran yihiin. haddaba maxaa keenay
in sarkaalka la khaarijiyo ama maxaa sababay gacan qaadka ama in askarigan uu u ciil aruuriyo kadibna uu ku fikiro inuu khaarijiyo sarkaalkii isaga ka sarreeyay ama taliyihii saldhigga oo ah ninaan xadgudub lagu aqoonin, ninaan dhib badnayn, nin aqoon-yahan ah. ilaa nin aqoon-yahan ah waa uu ka duwan yahay inta badan saraakiisha ama askarta aan aqoonta lahayn oo ku tacadiya askartooda iyo sidoo kale dadka iyaga ka hooseeya iyo kuwa xabsida ugu jira. dabcan sidaan idiin sheegay sarkaalku 4 saldhig uu soo xukumay, madaxdan baaristu soo noqday magaalada Hargeysa, baaristu yani xilal kala duwan soo qabtay, nin xirfad iyo aqoon u leh shaqada uu hayo ayay ahayd. inta badanna sida aan ku naqaano askarteena Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, ha joogaan Hargeysa, ha joogaan Soomaaliyada kale, waxaa lagu yaqaanaa in askarta ay ka dhigaan dadan u qalmin askar iyo dadan mataqaanaa yani qof loo taag waayey ama waalidkiisu dhibaato badan ku hayay ayaa inta badan askar ka dhiganaa, halka dadka kale ee adduunka hormaray imtixaanka askarinimada yani askarinimada imtixaan loo maro, ardada ugu dhibcaha sareysa loo qaato, yani qofka waxyaabo badan lagu qaato. dabcan waxaa la sheegay in muran uu soo kala dhex galay kadib markii askariga falka geysan doona uu dhowr jeer ka maqnaaday shaqada, gembiskiisu u batay, wax la yiraahdo baafina la saaray oo markii dambe baafintu ay sabab ku noqotay in mushaarkiisa hakad la geliyo si uu u soo cadeeyo waxyaabihii uu ku maqnaa. adigu warku wuxuu ku soo aruurayaa ninkan goysgoyskiisa iyo gembiskiisa ayaa badnaa iyo shaqada inuu ka maqnaado. marka baafintii uu saaray korneelkan saldhigga haystay ayaa la sheegay in khilaafkoodu uu salka ku hayay, murankuna uu halkaa ka soo bilowday, askariguna uu intaa ka carooday, dhowr marna uu isku dayay sarka inuu la hadlo taliyaha, arrinkiina la isku fahmi waayey oo la yiri dadka awoodda una dembigan inay kala xisaabtamaan ayaad u sheegaysaa wixii excuse ah. ugu dambeynna askarigu uu goodiyey, maadaama uu goodiyey askarigu taliyihiisa u goodiyeyna la xiray 24 saacna uu xirnaa. kadib askarigii uu baxay, maalin oo kale uu maqnaa, iyadoo markaasi boolisku qorsho uu yahay mar kale in la soo xiro. uu maanta saldhigga yimid sarkaalka oo howlo badan ku jiray oo korneelka aan idhaahday sorry allah u naxariistee oo nasanaya sidaa isaga jiifa tuuray la soo dur istaagay, uu nafta uga riday, kadibna uu baxsaday. ugu dambeyn ciidanka ayaa dabagal ku sameeyey, gacanta ayaa lagu soo dhigay, xabsiga ayaa loo taxaabay. waxaa la qaaday korneelka oo wadooyinka saldhigga la geeyey, la geeyey isbitaalka. waxaa la xaqiijiyey inuu geeriyooday. ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa janno ha ka waraabiyo. baaris ayaa socota, waxaa toos loo baarayaa sida wax u dhaceen. waxaan idiin xaqiijinayaa in wax fal yani ay ka dambeeyeen khawaarij ama argaxiso uusan jirin, in falka uu gacantiisa ku geystay mid ka tirsan askarta ciidanka Somaliland. falkuna sidaa u dhacay. ha loo duceeyo, commentiga loogu duceeyo taliyaha in ilaahay subxaana wa tacaala u naxariisto, in jannadiisa ka waraabiyo, intaabkiisa midigta ka siiyo, ehelkiisuna sabar iyo imaan ilaahay subxaana wa tacaala ka siiyo. waa mahadsantihiin.